iyadoo gabi ahaanba maanta laga tukanayay salaada ciidul adxa guud ahaanba caalamul islaam ayaa bulshaweynta ku dhaqan magaalada Caynaba waxay u dareertay koronka kubadda cagta waxaana shacab weynahaasi kala qayb galay mas'uuliyiinta gobolka kuwa degmada Caynaba cuqaal iyo waxgarad waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan ciid mubaarak leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliland meel kasta ay ku nool yihiin ilaahay sanadkiisa hay nagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo nabadgelyo kulli culimada wixii fariinaha leedin hayay idin dhameysay waxa weeye inaynu danta guud iyo xabaalaha iyo meelaha magaranaysa la wada leeyahay inaynu wada ilaashano oo aynu wada daryeelo ayay muhiimadu tahay dibaan la sameeyay guddigiidaasaan soo tusaynaa dhulka xabaalaha aan u qoondaynay waa dhul kiiloomitir isku weer ah oo mustaqbalkaanu isleenahay sarfay xabaaluhu wadooyinna xitaa ka saara markaad isla qaadataan guddida loo qorsheeyay hadeer ee loo raro xabaalaha kale inta qorshahaasi socdo labada xabaalood hadeer la doonayay in la hagaajiyo way xidhan yihiin xabaalaha gargaar dhanka kale telefishanka caalamiga Home Cable wuxuu mikrofoonka la dhex qaaday bulshaweynta magaalada Caynaba kuwaasi oo hambaliyooyin kala duwan u diraya dhammaanba muslimiinta ku kala nool geeyiga caalamka waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan waxaan munaasabada ciidul adxa awgeed halkan hambaliyo ugu diraya dhammaan muslimiinta kala duwan ee caalamka joogta waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan ugu horeysiinayaa ehelkayga asxaabtayda oo igu horeyso iyo hooyaday macaan Xaliimo Cali Buraale marwada qaaliga Asma Xamed Awdiriye dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan ugu hambaliyeenayaa ciidul adxa darteed guud ahaantoodba gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak iyagana dhammaantoodba waxaan halkan hambaliyo uga dirayaa ummadda islaamka meel walba joogto waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ilaahay ciideeda inuu gaashiyo bash iyo barwaaqo waxaan halkan awalan ka salaamayaa anoo fursadda ka faa'iideysanaya qoyskayga oo ugu horeeya aabahay waan aad u jeclahay iyo hooyaday walaaladay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr halkan waxaan tahniyad uga dirayaa dhammaan anigoo xildhibaan xasan casayr dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan caalamka gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saraar saxaafadda madaxa bannaan ee hortuban ee nooc walba leh waa Cali Aadan Dirir Cali Tani wararka telefishanka Home Cable magaalada